juhud nebigu dad buu ku dadaalay dhoobo dhagaxna kuma dadaalin ashyaa kuma dadaalin nebigu waxa uu ku dadaalay waa basharka likulli ummatin amiin wa amiinu ummati abaa cubayda buu rasuulku yidhi ummad walba aamin bay lahayd aaminka ummaddaydu waa abaa cubayda buu rasuulku yidhi wamaa xadasakum ibnu mascuudin fasadiquuhu cabdullaahi ibnu mascuud waxa uu niiga sheekay oo dhan rumaysta buu rasuulku yidhi man sarahu an yandura ilaa rajulin min ahli ljannati man sarahu an yandura ilaa shahiidin yamshi calaa wajhi اlardi falyandur ilaa طalxa bn cubaydillah buu rasuulku yidhi ninkii jecel inuu arko ahlujanno arrada dusheeda socda ha arka buu nebigu yidhi طalxa bn cubaydillaah likulli nebiyin xawaariy nebi walba gargaare ayuu lahaa aniga gargaarahayguna waa zubayr buu rasuulku yidhi calayh الsalaatu wasalaam dadkoo dhan buu nebigu yidhi jannaday jecel yihiin jannaduna waxay jeceshahay salmaan iyo miqdaad iyo bilaal iyo camaar bay jeceshahay buu rasuulku yidhi mansab ruba ashcasa akbara madfuucun fi labwaab low aqsama cala allahi la abarah minhum baraa binu malik nebigu wuxuu yidhi badanaa kuwa boodhaysan oo timoogu rifrif ay leeyihiin oo albaabada lagu celiyo oo hadday ilaahay ku dhaartaan dhaartooda ilaahay aqbalaayo baraa binu malik baa ka mida buu rasuulku yidhi nebigu kuma dadaalin dhoobay wuxuu ku dadaalay bashar dad wuxuu u yimiday sida maanta innagu aan ku jirno si ka daran ku nool dadkiibuu dadaal iyo fikir iyo duco u geliyey dadkii waxay noqdeen sidiiqiin bay noqdeen asxaabu maxamed bay noqdeen markii dambe suxba darajad ka sarraysa ma jirto ciisena xawaariyiin buu lahaa baa la yidhi nebi maxamedna asxaab baa lagu magacaabay jamacaddiisii asxaab khaatama alambiyaa bay suxbad la yeesheen saxaabatu moxamed baa la yidhi cali bnu abi aalib baa la weydiiye oo lagu yidhi abubakr asidiiq iyo mu'minka ahle fircoon midkee fadli badan wuxuu yidhi wallaahi baan ku dhaartee mu'minka ahle fircawn oo arlada laga buuxiyey saacadda abubakar uu godka nebi maxamed kula jiray ayaa ka wada khayr badan buu yidhi daaka rajulun yaktumu iimaanahu kaasi nin wuxuu ahaa iimaankiisa qarsanayey wa haada rajulun aclana iimaanahu abubakarna nin wuxuu ahaa iimaankiisa markiiba muujiyey oo nebiga isgarab taagay buu ahaa calayh isalaatu wasalaam fa kuma dadaalin nebigu dhoobada iyo arlada iyo turaabke bal nebigu bini aadankuu ku dadaalay bini aadankuu ku dadaalay quwaddiisi iyo fikirkiisiina wuxuu ku bixiyey siday bashariyaddu u islaaxdaa siday bashariyaddu ilaahay u garataa dadkana sidee bay ilaahay ugu dhowaadaan dadku sidee bay ilaahay abuuray cilaaqa ula yeeshaan taasuu nebigeennu ku dadaalay calayh isalaatu wasalaam ummadihii hore baa la yidhi mar allii markay ilaahay wax uga baahdaan nebiyaday u sheegan jireen waid istasqaa muusa liqowmihi nebi muuse qoomkiisu markay biyo doonaan nebi muuse yidhahdeen noo weydii ilaahay biyo xawaariyiintu markay doonaan in ilaahay maa'ida u soo dejiyo hal yastadiicu rabbuka an yunazila calayna maa'idatan min aلsamaa nebi ciisey maraynays yidhahdeen noo weydii ilaahay inuu xedhan noo soo dejiyo reer bani israa'iil markay dooneen in laga bedelo in cuntada samada ka imanaysa looga bedelo oo maaragtaane cunto ay u tabcaan la siiyana nebi muuse ay u sheegeen ay ku yidhaahdeen ilaahay noo weydii in maaragtaane arladow nooga soo saaro tamaraad iyo mudho walaakiin nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo asxaabtiisii la jooga oo khaatamulambiyaaya oo imaamulambiyaaya oo ducadiisa la aqbalaayo ayaa ilaahay ku yidhi wa qaala rabbukum adcuunii astajib lakum aniga toos ii weydiista waxaad doonaysaan ducadiina waa niga aqbalayaa khaasiyaadka ilaahay ummadda nebi maxamed uu siiyey bay ka mid tahay nebigii oo dhex jooga baa lagu yidhi ilaahay iyuu ku yidhi iweydiista waxaad doonaysaan waa nin yeelaya aniguna ibarya waa niga ajiibayaa dhammaan asxaabta nebigu ducadooda mustajaabay ahayd limaada ilaahay bay barteen xadhig ilaahay bay qabsadeen ilaaha khaaliqa cilaaqa dhaba la yeesheen ducadoodii baa noqotay mustajaaba nebi sulaymaan calayhi salaam qoomkiisa nin ducadiisu ay mustajaabo tahay baa ku jiray oo sila bilaahi ilaahay cilaaqa la leh markuu doonay carshigii bilqiisin loo keena maaragtaanay falastiin uu nebi sulaymaan ku yidhi qaala man yaatiinii bicarshihaa qabla an yaatuunii muslimiin qaala cifriitu min aljinni ana aatiika bihi qabla an taquuma min maqaamika cifriit jinka ka mida wuxuu yidhi dhowr saaca
ayaan carshiga bilqiisa ku keenay buuhi halkaas qaala aladii cindahu cilmu min alkitaab asif binu barkhaabay mufasiriintu dhigeen magaciise wuxuu yidhi ana aatiika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuka ilgibirhs ayaan carshiga bilqiisa ku keenay buuhi min alyaman ilaa iyo maaragtaanay falastiin egaa muxuu haystay sila billaah ilaahay buu cilaaqo la yeeshay allah ina fahamsiiyeen qur-aanka allah ina fahamsiiye iimaankana qalbiga allah inoo dhaadhiciyo xaqiiqata aliimaan allah ina siiyo hal duco keliya ninkaasi waxaa la yidhi ismullahi alacdam ku yaqaanay ilaahay buu cilaaqo la lahaa falamaa ra'aahu mustaqiran cindahu qaala haadaa min fadli rabbii ilgibidhs ayaa carshigii bilqiisa min ardi alyaman ilaa iyo falastiin lagu keenay ilgibidhs walaakiin asxaabtii nebiga radia allaahu canhum imisa khawaariqu alcaadaat imisaa ka soo daahirtay noloshooda sayidinaa cumar radia allaahu canhu camar binu caas markuu masar tegey dadka reer masar caado waxay u lahaayeen gabadhii dhalata gabadh bikira oo shaabadoo qurux u dhalatay labadeeda waalintay raalli geliyaane lacag iyo dahab wax walba siiyaan ayay webiga niil ku tuurayeen deedna webigu markaasuu biyihiisu isziyaadayeen deedna markaasay beeraha ku waraabsanayeen caadadii buu ka joojiyey abaar baa dhacday biyihii baa sii gudhaya reer masar waxay u dhowaadeen dalkaba inay ka baxaan markaa buu joojiyey cumar buu u diray risaalo markaasuu yidhi yaa amiira almu'miniin arrintaasaan ku arkay reer masar waana ka joojiyey biyihiina waa sii gudhayaana maxaan sameeyaa markaasuu cumar ku yidhi asabta waad asiibtay buu ka yidhi waad asiibtay maaragtaanay waad asiibtay laakiin waxaan kuu sheegayaa warqad baan soo dirayaa akhyaartooda iyo cuqaashooda ururiyo webiga niil dul teg warqaddaan webiga ku dul furo ku dul akhri deedna ku tuur buu yidhi wixii ilaahay ka falay meeshaa waad arki doontaaye waa cumar qof baa qof warqad u dira taasaa macquulah soo maaha qof baa webi warqad u dira ka warrama waa sila billaah cilaaqa maca allahi bay heleen dadkaas warqaddii buu keenay warqadda waxaa ku qoran min cabdillaahi bay ka socotaa amiira almu'miniina cumar bay ka socotaa ilaa waadi niil bay ku socotaa in kunta tajri min qablika falaa tajri haddaad awood aad leedahay aad ku soconaysay kuwa baanina ha socon hadduu ilaahay ku socodsiinayay weligaana allaha waaxidkee qahaarkaa waxaan weydiisanay inuu ku socodsiiyo warqaddii baa lagu tuuray 16 diraac ayuu kor u kacay baa la yidhi webigii ilaa joogadeena webigii isma taagin biamri illaahi yajri amarka ilahay buu ku socdaa reer misir cuqaashoodii iyo salaadiintoodii markay arkeen karaamaddaas fadakhaluu fii diin illaahi afwaaja qisada labaad waxa weeyaan sayidina cumar radia allaahu canhu oo madiinata almunawara mambarka ka khudbadaynaya ciidankii saxaabiga saariye uu watay falastiin joogay ee gaaladu dhabarjebinta ay rabeen inay ku sameeyaan halkaasuu cumar kala hadlay kelimaad khudbadda aanan ku jirin ayuu ku soo daruu yidhi yaa saariyatu aljabal wa yaa saariyata aljabal yaa saariya xagga buurta yaa saariya dhinaca buurta iska fiiri khudbaddii markuu ka dhaadhacay asxaabtu way yaabeen yaa amiira almu'miniin maanta maxaa tidhi markaasuu yidhi waxaan idhi hadda inii sheegi maaye ciidanka allaha keenay buu yidhi waad arki doontaan jamaacaddii baa soo noqotay fatxi iyo khaniimay la soo laameen iyo khalaba iyo haziima iyagoo soo guulaystay markaasay axwaashii bayaamiyeen maalin caynkaas annagoo dagaalkii u diyaargarownay oo macrakadii dagaalkii uu noo bilaamay ayaa gaaladu dhabarjebin nagu soo sameeyeen fa samicnaa sawta cumar wasta aljibaal buuro dhexdood annagoo marayna hadalkii cumar baa halkaa ka maqallo bay yidhahdeen hadi cilaaqa maca allah maraat laysa mara aakhirsa siirada asxaabta maraat badahay dul mareen badaha asxaabta rasuulku mashuu cala albixaar haddii nebi ciise muuse calayhi salaam qoomkiisa badda ilaahay u kala jeexay bay culimmadu yidhaahdeen asxaabu muxamed nebi maxamed oo la socon ayaa asxaabta nebiga webiyadaa dul mariyeen fardahoogii wahaadaa ibraahim aladham doonni buu la socday doontii baa kacday mawj baddii baa aad u kacday
dadkii doonta la socday oo dhan ayqanuu bilhalaag halaag bay dareemeen fasaaxuu sayxa way qayliyeen rag iyo dumar ubad way qayliyeen hal mar keliya uu sheekhi u hurday hurdadiibuu ka kacay markaasuu arkay doontii oo marna xagga u gadoomaysa marna xagga u gadoomaysa dadkii oo dhanna ay geeri u diyaar noqdeen ay wada qaylayaan markaasuu gacmaha cirka u taagay yaa rabbi araytanaa qudrataka fa arinaa cafwaka ilaahow qudraddaadiina tustee dulqaadkaagiina na tus buu yidhi baddii baa ilaahay fadhiisiiyey mar keliya cilaaqa maca allaahi baa walaal muslimka waaryaada muslimka waxay doonaan ha soo qaataan gaaladu ninka muslimka waxaa ilaahay siiyey quwad caalamka o dhan haddii loo barbardhigo aan u dhigmayn cilaaqa maca allah siirada ku laama siirada akhrista asxaabu rasuul maxay haysteen caalamka marka la eego quwadda ay gaaladu haystaan iyo asxaabtu waxay haystaan asxaabtu waxba ma ahayn laakiin sila billaahi bay lahaayeen cilaaqa maca allah darsigaana ayay ka qaateen khaatamu alambiyaa bay ka qaateen khaatamu alambiyaa ghaswatu daat ariqaac markii asxaabtu ay ka soo laameen waqta duhur geed hadh macaan bay nebiga u dhaafeen iyakuna geedo kaley raadsadeen markaa buu nebigu seeftiisii soo qaaday geedka ayuu sudhay markaasuu nebigu geedkii hoos seexday yaana daba socda nin mushrika oo acraabiya khawrath binu xaaris la dhihi jiray ayaa daba socda reerkiisii baa la soo dhammeeyey dadkiisii baa la soo laayey xoolihiisii baa la soo qaatay imisuu ninkaasi cidho iyo cadhow haya nebiga asxaabta inuu cidlo ku helo uu u jeedaa nebigoo geedkii hoos hurda keligii asxaabtuna way seexdeen wakhta dahiira weeyaan cadaad waa kulayl geed hadh fiican baa nebiga loo dhaafay seeftiisii nebigu geed ku sudhay uu seexdeen nebigu calayhi salaatu wasalaam ninkii nebiga intuu dul yimiday ayuu seeftii galka ka saaray markaasuu nebigu ku kacay rasuulku markaasuu nebigu indhaha kala qaado waaba ninkii oo dul taaganba markaasuu yidhi alaa takhaafunii miyaanad iga cabsanayn markaasuu nebigu yidhi may kaa cabsan maayo markaasuu yidhi man yamnacuka minii ayaa iga kaa mancin kara maanta markaasuu nebigu yidhi allah 3 jeer weli asxaabta nebigu war kama hayan qisadda dagaalkaa meesha ka dhacaya nebi maxamed mooyaane asxaabtiisu war kama qabaan way hurdaan waa sida xadiisku dhigayo seeftii baa ka dhacday ninkii isla markii nebigaa seeftii qaatay nebigu markuu seeftii qaatuu ninkii qabtay ayuu nebigu asxaabtii u yeedhay soo kaca buu yidhi way soo kaceen markaasuu nebigu qisadii meesha ka dhacday min alif ilaa ya ayuu asxaabta uga warramay muxuu uga jeedaa nebigu qisadaas ina haada اkhtarada calaya sayfii wa ana naa'imun faاstayqadtuhu wa fii yadihi saltan faqaala lii alaa takhaafunii faqultu laa faqaala lii man yamnacuka minii faqultu allah 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 fasaqada sayfu min yadihi qisadda meesha ka dhacday asxaabtu ma joogin laakiin nebigaa uga warramaya muxuu nebigu uga jeedaa qisaddaa uga warramaya ya tawakulkuu barayaa tawakul ictimaad cala allah makhluuqoo dhan siduu u dhan yahay laa yataxarak ila biiraadatihi walaa yaskun ila biiraadatihi wain yamsaska allahu bidurin falaa kaashifa lahu ila hu wain yuridka bikhayrin falaa raadda lifadlih